waxaa magaalada Jigjiga ay marti gelinaysaa oo lagu qabanaya xuska toddobaadka magaalooyinka Itoobiya waxaana magaalada Jigjiga ku soo qulqulaya marti kala duwan oo iyagu ka soo kicitimay dawlad deegaanada uu dalkan Itoobiya ka kooban yahay iyo waliba ismaamul magaalooyinka 200 oo magaalo ayaa ka soo qayb gali doona sida la rajaynayo waxaana dawladda deegaanka Soomaalidu ay xil iska saartay sidii markaasi martidaasi loo dajin lahaa isla markaasna uga qayb qaadan lahaayeen xuska forumka toddobaadka magaalooyinka Itoobiya waxa marti ahaan la filaya in markaasi ay Jigjiga soo gaadhaan iyadoo horaantoodiiba ay soo galeen in ka badan 10,000 oo qof oo markaasi magaalada Jigjiga ay marti gelin doonto anagoo markaasi dadka wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan soo dhaweynta martida iyo martiqaadka ay dawladda deegaanka Soomaalidu marti gelisay xuska magaalooyinka dalka Itoobiya oo lagu qabanayo magaalada Jigjiga shacabka ayaanu fikirkaasi ama su'aashaas aanu hordhignay bismillaahir rahmaanir rahiim horta maanta waa maalintii koowaad ee lagu qabto xuska magaalooyinka dawladda deegaanka Soomaaliya waxaan aad u soo dhaweynaynaa inay maanta ay noqoto fursad qaali ah inay noqoto fursadaas oo ah in dadku ay kilada kale ay maartay ka dhaxlaan experience badalka waddanku uu yahay waddan xuduudaha ku dhow oo ganacsi ah marka ay aad iyo aad u soo dhaweyn doonaan dhaxgal fara badan iyo ganacsi fara badan awgeed ay u suurtagelin doonto dadka martida ka qayb gali doona insha Allah waxaan u arkaa xuskan sideedaad ee lagu qabanayo caasimadda deegaanka horumar iyo wanaag iyo barwaaqo la gaadhay iyo ummadda yacni midnimada ummadda Itoobiya ka dhaxaysa iyo karaamada ku dhismaysa aqoonsiga isdhaxgalka ummadda Itoobiya waxaan u arkaa si aad iyo aad u wanaagsan baan u arkaa marka sidaa darteed waxaan soo dhaweynaynaa bulshada Itoobiya oo dhan baa isku meel isugu imanaysa isbaranaysa shaqada iyo maaragtay horumarka la gaadhay ayay kala qaadanayaan fikirada kala duwan bay kala qaadanayaan aqoon kororsi bay kala faa'iideysanayaan marka sidaa darteed aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa diyaar waxaan u nahay inaan nabadgelyada iyo midnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadda ilaalina maantana waa markii u horeysay ee ay marti gelin doonto xuska ama forumka magaalooyinka Itoobiya oo ah markii u horeysay ee lagu qabto deegaanka Soomaalida Itoobiya Ali Ayaale Hon Cable TV magaalada Jigjiga